waa galab casar gaabada codceedu sii dhacayso halkani oo aduleedka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay mid ka mid ah haldoorka gobolka Togdheer Muuse Maxamuud Fadul Muuse Dheere waa haliyay hantiyay himiladiisa isla markaasina ku maqnaa dalka dibadiisa soo dhaweynta waxa ka qayb qaadatay bahda sportiska dhalinyarada gobolka Togdheer iyo sidoo kale haweenweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ugu horeyntiinba waxa hadalka qaatay dhalinyarada gobolka Togdheer kuwaasoo si wada jir ah u soo dhaweeyay Muuse Maxamuud Fadul Muuse Dheere ku soo dhaweynayna walaalkeen Muuse Maxamuud Fadul oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka dibadiisa Muuse waa shakhsi aynu wada garanayno qiimaha iyo qaayaha uu ku leeyahay gobolka Togdheer waa shakhsi dhalinyarada gobolka Togdheer haldoorkeeda kamid ah waa shakhsi ka soo shaqeeyay isdhexgelinta dhalinyarada la dagaalanka qabyaaladda waa shakhsi wax weyn ku soo taray horumarka iyo dhalinyarada isdhexgalkeeda aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa Muuse wadankaaga iyo dalkaaga waxaan halkan u joognaa walaalkeen maanta Muuse Maxamuud Fadul oo dhamaanteen aynu halkan u istaagnay oo aynu maanta oo dhan diyaar u ahayn inaynu soo dhaweyno waxa ilaahay mahadin ilaahay nabadqab ku keenay oo uu nabadqad inuu joogo magaaladeena qurux badnayd Fadul sida ogsootiin baan u taagnayn 4 saacadood iyo in ka badanba waanu maanta awoodaa taaya mid ka badan bayna maanta u jirno Muuse Maxamuud Fadul soo dhaweyntiisuna halkan oo kaliya ma ahaanayso waxa noo diyaarsan meel badan oo ku soo dhaweynayno oo gobolka nooga qorsheeyaa dhammaan taageerayaasha Muuse soo dhaweyntiisa ka soo qayb gashay waxaan leenahay waa mahadsantiin dhamaantiin kuntii iyo gabagabadii waxaa hadalka qaatay Muuse Maxamuud Fadul oo ka mahad celiyay sida diiran ee loo soo dhaweeyay waxaana kamid ahaa Togdheer ee halkan isku timi waxaan leeyahay waxa weeye horumarkii wadanka gobolka Togdheer u muuqday waxaan ku kasbanaynay dib nimaadnaa dib soo dhaweynay ugu dambeyntiina waxaa loo soo galbiyay dhanka iyo magaalada Burco iyo hoyga uu ka tagi doono magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi